cisbitaalkan ayaa mid laga hirgeliyay degmada Wudud ee gobolka Buuhoodle kadib baahiyo badan oo loo qabay in xarun caafimaad ay yeeshaan ku dhawaad 20 deegaan oo hoos yimaada degmada Wudud kuwaas oo ka aradan adeegyada caafimaad ee leeyihiin deegaanada kale hay'adda kalkaal oo hay'ad ka dhisan cariga Mareykanka oo ay leeyihiin muwaadiniin ka soo jeeda goboladani ayaa isku xilqaamay sida ay wax uga qaban lahaayeen deegaanada aan lahayn xarumo caafimaad oo ay dadku u baahan yihiin waxayna laba xarumood oo waaweyn oo nooceedo kala hore loo arag ay ka hirgeliyeen deegaanada Wudud iyo sidoo kale Orbogeys oo hadda ku dhow gabagabo waxaana dhismaha cisbitaalkaasi fuliyay shirkadda Alfanuun Construction Company oo ah shirkad muddo badan ka soo shaqeynaysay goboladani isla markaasina si casriyeysan oo ay nooceedo kala hore loo arag u dhistay cisbitaaladaasi wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Salbaan Yuusuf Cali Koore ayaa kormeer ku tagay xaruntaasi caafimaad isagoo si weyn u soo dhaweeyay xaruntan caafimaad ee hirgelisay hay'adda kalkaal oo ay leeyihiin shacabka soo jeeda goboladani wuxuuna wasiirku uga mahadnaqay isku tashiga ay sameeyeen shacabka degmada Wudud ee gobolka Buuhoodle dhankiisa waxa ka warbixiyay xaruntan caafimaad iyo sidoo kale marxaladii kala duwanaa oo soo martay xaruntani caafimaad ee degmada Wudud Jaamac Cali Jiidaal madaxa shirkadda dhismaha Alfanuun Construction Company ayaa ka warbixiyay xaaladda ay dadka deegaanka u qabeen inay yeeshaan xarun caafimaad oo lagu adeego dadka deegaanka Wudud iyo sidoo kale deegaanada hoostaga wuxuuna sheegay qaybaha uu ka kooban yahay cisbitaalkani iyo waxyaalaha uu qaban doono halkan cisbitaalka Wudud cusub waxaa dhistay shirkadda Alfanuun Construction Company waxaana maalgelisay kalkaal waa hay'ad ka dhisan Mareykanka waa hay'ad Soomaali leedahay siiba deegaanka Wudud waana laba cisbitaal wasiir Orbogeys iyo kan marka insha Allah bil kareem waxaan ku sheegaynaa in la qalabeeyo dhakhtarkan qalabkiisi wali waa lagu maqan yahay laakiin waxaan rajaynaynaa wasaaradii iyo maamulkii iyo meesha waxa ka jira in la ogaado jaaliyada ayaana lacagtan bixisay ilaahayna khayr abaal ha ka siiyo waxa loo baahan yahay deegaankan cisbitaalkii ugu horeeyay weeye waxaana hoos yimaada 17 tuulo oo magaalo waa biyo la'aan magaaladan biyo ma jiraan riig ma jiro waan biyo gelinay dhakhtarka wax biyo la'aana wax riiga ma jiraan nolol ma jirto hadaan biyo la helin cisbitaalkana shaqeyn ma yaadaan biyo la helin qalabka la keenayo waxa kamid ah CT scanki X-ray wixii oo dhan in la keenaa laga yaabo lacagtoodina way aruurinayaan nimanka jaaliyada la yiraahdo ka waxa loo baahan yahay in wax qabad baa loo baahan yahay in wax la qabto waxa way waa 22 qol cisbitaalku 22 ka qol waxa kamid ah tiyaatarkii farmasigii receptionadii dhakhaatiirtu meesha galeysay daktaradu meesha saaxanayeen qolalkay saaxanayeen chiefka ahaa wixii oo dhan service-kii oo dhan wuu dhan yahay marka insha Allah bil kareem waxaan doonaynaa in wax la qabto oo wax qabadka jaaliyadu ay qabatay in wax loogu daro waanu ballan qaadaynaa haddii Ilaahay nafta inoo daayo inaan wasiirka caafimaadka gaarsiiyo fariinta oo cisbitaalka ama wixii uu soo diro ama uu yimaado محمود هذا نذكر محمود قري ساب TV مقالة وودو gobolka Buuhoodle